Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar qaraxyo xooggan ku bilowday oo saaka aroornimadii hore kooxda Al-Shabaab ku qaaday xero ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ku dhex maray duleedka degmada Warshiiq ayaa la soo wariyay inuu ahaa kii ugu xoogganaa ee ka dhaca halkaas, waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Dagaalka oo socday muddo ku dhow 3 saacadood ayaa wararku sheegayaan inuu geystay khasaare kala duwan oo kala gaaray labada dhinac, hase yeeshee weli si rasmi ah looma oga inta uu dhan yahay khasaaraha kala gaaray labada dhinac. Kooxda Al-Shabaab ayaa qoraal ay ku baahiyeen barahooda internetka ku sheegtay inay la wareegeen xerada ciidanka dowladda ee weerarka culus ay kula jarmaadeen aroornimadii hore ee saakay. Ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab, mana jiro wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan dagaalka culus ee saakay ka dhacay duleedka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wixii ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. Aniguna Mahad Xuseen baan ahay. Meel walba aad joogtaan, duhur wanaagsan.